إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha ku jira oo salaamaya kulligood. maanta cinwaankeena wuxuu yahay fadlu sadaqa. sadaqada fadliga ay leedahay, ha noqoto tii waajibka ahayd oo zakada ah, iyo ha noqoto tii aan waajibka ahaynoo yani ma arkaysayay ilaahay subxaanahu watacaala qofka ugu dhowaanayey. waxaan ognahay oo kale nabigeena inay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam nabiga inuu ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam xadiis uu leeyahay إن في المال إن في المال حقا سوى الزكاة. xoolaha waxaa ku dhex sugan xaq zakada aan ahayn, oo xooluhu in masaakiinta laga quudiyo, qaraabada laga xiriiriyo, yani ma arkaysaa dadka ehelka ah laga marti sooro. xuquuq fara badan ayaa xoolaha ku dhex jira weeye oon zakada ahayn. marka koowaad walaalayaal, allah subxaanahu watacaala sadaqada oo ah min afdal الطaacaati waalqurubaat, ilaah waa nugu booriyey kitaabkiisa tabaaraka watacaala. سورة المنافقون آية 8 الله حليه سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله حليه وأنفقوا مما رزقناكم، بحيا مما رزقناكم وحي عن إذنكو أرزقني وحكم إذا لبحا من تواطب عضيوي wixii lagugu arsuqay oo dhan hala bixin, wax ka mida bacdi ka mida la bax. min qabli an ya'tiya axadakum almowt, midkiin inta aysan geerida u imaanin ka hor wixii lagugu arsuqay oo xoolo ah wax kala bax buu rabbi subxaana watacaala leeyahay. oo markii ay geerida timaadana, ibni aadanka markuu tafriid iyo la yimaado, gaabin la yimaado, marka ay nafta ka baxaysa, wuxuu ku cataabayaa oo leeyahay fayaquula rabbi lawlaa akhartanii, ilaahayow dib maad ii dhigtid, ilaahow dib ii dhig macnaha, ilaa ajalin qariibin, muddo dhow maba rababa wax muddo dheer inaan sii noolaado ma doonaye, muddo yar ilaahow dib igu dhig. oo muddada haddii dib laguu dhigo maxaad qabanaysaa? fa asadaqa wa akun min asaalixiin, xoolahan la baxayaa, sadaqadan badinayaa, dadka suusuuban oo rabbi uu xaqaagii gutay, xaqa muslimiinta ay kula hayeenna dushooda yani dushiisa saarnaayo gutay. labadaa xaq qof gutay baa noqonaya. maxaa yeelay saalix, qofka saalix wuxuu noqon karaa man adaa xuquuq allahi kaamilan wa xuquuq alcibaadi kaamilan wey. marka waxaad ogtihiin walaalayaal, waxa qofka markii ay nafta ka baxayso oo uu dhimanayo, waxa uu yani tamaninayo maanta markuu caafimaad qabo oo xoolaha haysto inuu ku dadaalaa loo baahanya. maxaa yeelay maanta waa xoolaan haysanaa, caafimaad baan haysanaa, camal saalixna waan qaban karnaa. sadaqadana oo camalka saalixa ka mid ah si gaara loo soo xulay ahmiyadda ay leedahay darteed, iyaduna waa la bixi karnaa wey. aayadda waxaan ka faa'iidaysanaynaa fawaa'id fara badan. allah aayad kale wuxuu ku leeyahay wamaa anfaqtum min shayin, wixii aad la baxdaan oo aad bixisaan oo shay uun ah, wax uun ah, ha yaraado ha weynaado ha bato, fa huwa yukhlifuh, alla subxaana watacaala wuu kuu gadaal marinaya. macnaha waxa weeyaan
وخير بوكو بدليا عاجلا أو آجلا، وهو خير الرازقين. انت رب سبحانه وتعالى وح ارزقنا اساء خير بدن تبارك وتعالى. الله آيات وحو كله هي والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كوا حوله هذا بحنية هبين يمال درار هبين بحنية سهو سري عاد بحنية سرا وعلانية حويان سري عاد بحنية سموقته يسقر صبو بحنية. halka waxaan ka faa'iidaysanaynaa mararka qaarkood sadaqada in la muujiyo fadli bay leedahay. maxaa yeelay adiga markaad bixiso waa lagugu dayanaya. marka haddii lagugu daydo haddee markaa waxaad soo gelaysaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha. sunno wanaagsan khayr badan wanaagsan ayaad jidaysay. jidayntaasi waxaa laga yaabaa inta camalkaa waddadaas kugu dayato kugu raacdo oo kugu dabagasha ajarkooda rabbi subxaana wa tacaala uu ku siinaya siran waclaaniyatan falahum ajruhum cinda rabbihim. kuwaas waxaa yidhaahdeen sifaad dhowra la siiyey aladiina yunfiquuna amwaalahum horta xoolahooday bixinayaan habeen imaalin bay bixinayaan. maxaa waxaa laga cabirayaa kama daalaan sadaqada habeen imaalin. sadaqadu yaraysi ma leh. xabadda muufada waa sadaqo, xabadda timirta waa arki doonaa waa sadaqo. yacni waxa weeyaan qofka muslimka mar laa yataxqirana min almacruufi shay-an. shayga macruufka ah yani ha xaqirin. waxaa laga yaabaa $30 oo aan ognahay dadka qarbiga jooga laba qof ay shaah ku cabto haddii makhaayadaha qaar galaan laba qof ay shaaha ku cabbaan. haddaa qof miskiina oo walaala oo soomaaliya jooga oo xanuunsan oo dalxaaja ah aad ugu tuurto u dirto intaad khidmada ka bixiso $10 ay gaarto haddii waxaa laga yaabaa 2 maalmood 3 maalmood 4 maalmood inuu iska quutaa laga yaaba. marka lama xaqiro. haddaan wax weyn qofka aan tarayn wax ma bixinayo. taas waa ixaa'aad shaytaani weeye. waxa weeyaan shaydaanka wuxuu rabaa turuqul khayr inuu ku dhaafiyo. shayga yar iyo shayga badanba ha yaraysan. macruufka lama xaqiro. billayli wannahaar siran wacalaaniyatan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. laba arrimood baa la sheegay dushooda muusan ahaanin wax khawfa cabsi. waxa ka horreeya kama cabsanayaan. maxaa yeelay nafta marka ay ka baxayso tatanazzalu calayhim almalaa'ika malaa'ig baa ku soo degaysa oo argagax tiraysa allaa tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljanna. way ka tirayaan khawfkii iyo argagixii iyo cabsidii ayay ka tirtirayaan. bal waa u bishaaraynayaan wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun. waxaad ku bishaaraysataan jannadii ma arkaysaayee laidin yaboohay. naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunya wa fi alaakhira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma taddacuun nuzulan. marka waxa weeyaan walaa khawfun calayhim waxay culammadu ku fasireen waxa ka horreeyo aakhira ah ka baqimayaan. laba marba malaa'igtu qofka way ka hor imaanaysaa qofka ahlu khayrka ah. marka cinda alixtidaar markii nafta ay ka baxayso oo dadka ay murugaysan yihiin qofka ahlu khayrka ah malaa'igta khayrka ee kusoo degaysa malaa'ikatu raxma kusoo degaysa naftiisay qibdoonayaan kafan fiican bay gelinayaan way ka farxinayaan qofkii wayna argagax tirayaan sida allah uu noo sheegay subxaana wa tacaala. markii qubuurta laga soo baxayana watatalaqaahum almalaa'ikatu haadaa yawmukum aladii kuntum tuucaduun. malaa'igtii baa ka hortegaysa way argagixii iyo fazacu lakbar فزع وين أي كبابئنيان وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تنوى مالك الذين يبوحي الذين أبان مرنيو جنة الذين جينيو رضا الله هليسان قفك مركاسو هشنيا بلنقات كاس كهرتقاسو هشنيا مركو حويان ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من التيرانيون يانو وحي كسو تقال إلهي سبحانه وتعالى وأوررنا يا تبارك وتعالى. walaalayaal waxaa sugnaaday nabigeena ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam fi lbukhaari wa muslim sida ku soo aroortay min xadiisi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu inuu allah subxaana wa tacala yidhi waa xadiis alqudsi qaala allahu tabaaraka wa tacaala ya bna aadam
أنفق عليك إنا آدمو وحبحي أنكو سيا واحد أنا دوش هذا أنكو قوضيو يعني قوضينت الله سبحانه وتعالى إن رزق لغو واسعيو وآد هشو رزق واسعة وحاتكوها ليس وحي القسيي وحكم من إنا لبحر ولا ليال نبينا صلى الله عليه وسلم وحاكسنا ذي حديث كسر البخاري مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر وحليه النبي أيان سوقاري وأمت صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة نبي وكعبة هركذا فضيه أيان سوقاري وأمت فلما رآني مكو نبي أبكي قال وحيري هم الأخسرون ورب الكعبة يعني هم أيقوا الأخسرون كو خساروي وكو تعب كو ضبعيوي ورب الكعبة كعبة ربي قدر كل أرتيه نبي صاحبه مكو أخي أبو ذر هم الأخسرون ورب الكعبة قال وحير أبو ذر فجئت ونمت حتى جلست إلى أن فرستي فلم أتقار أن قمت يعني فلم أتقار وحكوذا أي لم أستطع الثبات والقرار يعني وافرستي لكن فدقي وقبن واي هذا النبي أن كان مغلى عليسكي صدرتي فلم أتقار ما أنحسن حتى أن قمت هنا استاجي سبك بوا استاجي فقلت وحنكوري مركانه تاجن يا رسول الله رسولك إله يو فداك أبي وأمي يعني هو يدي أبهي أيام كوفرنا ياي من هم كوا سوى كوا يعني تعب كوا خساري ولبا إنه تعب كوا خسارين دار عذر راعسي كوا سوى مركز النبي وحيري هم الأكثرون أموالا وكوا حولها بدن هيسوي إلا من قال قفك سميموي قال بمعنى فعلوي إلا من قال إلا من فعل قفك سميموي هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم نبي وحيري قفك سدا يسدا 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 سميموي مركو سدا يسدا ليهي وحو إشارة يا فرتيسة قداشيسة مدقتيسة بدحديسة يعني قفك مدق بدح كتور سمالك بوضعنا هبل ديغسيو مدق بدح بوا كتورا يعني وحويان حوليس قفك بحيوي مركز النبي وحيري عليه الصلاة والسلام وقليل ما هم كواسن وكوير استفاد عن شيء أو خسران كاللوغة بدباديو يعني dad yar ayaa ku sifaysan dadka xoolaha waa jecel yihiin dadka xooluhu aad bay u jecel yihiin marka xadiiska waxaan ka faa'iidaysanaynaa xoolaha badan haddaan lagu barxin ma arkaysaa sadaqa haddaan lagu barxin daa khasaaro ayaa gacanta ilwaha la gelaysaa weeyaan waxaa garanaysaan xadiidka ku soo aroray bukhaari iyo muslim sidoo kale min xadiisi anas ibn malik radia allahu tacaala canhu waardaah saxaabiga la yidhaahda abu talxa oo ansaar ka mid ah wuxuu ahaa dadka ugu xoolaha badnaa reer ansaareed xoolihiisana wuxuu ugu jeclaa beer la odhan jiray bayruxa beertaasi waxay ka soo horjeeday nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisii bay ka soo horjeeday nebigana calayhi salaatu wasalaam waa u geli jiray biyo macaan oo ay lahaydna wuu cabbi jiray nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh marka ay soo degtay aayadda lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayadda markay soo degtay qaama abu talxa ayaa istaagay ilaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayuu xaggiisa isu taagay oo rasuulku aaday faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina allaha tacaala yaquulu fi kitaabih ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun oo macnaheedu tahay biri iyo samafal ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan xoolihiina aad ka bixisaan mima tuxibuun waxaad jeceshiin wa ina axaba amwaalii ilaya bayruxaa xoolahayga midda loogu jecel yahayna waxa weeyaan waa bayruxa beerta bayruxa la yidhahdo wey
وإنها صدقة لله. iyaduna maanta wixii ka dambaysa maanta wixii ka dambeeya waa sadaqo ilaahay dartii bay sadaqo u tahay. arjuu biraha wa dukhraha, waxaan alla ka rajaynayaa subxaanahu watacaala birigeeda iyo samafalkeeda iyo kaydkeeda inuu alla kayd igu bedelo qiyaamaha iyo samafal inuu alla subxaanahu watacaala adduun iyo aakhiraba igu siiyo ayaan alla ka quudaraynayaa oo ka rajaynaya cinda allah. fadachaa yaa rasuula allahi xayثu shi'ta, rasuulka allow ana iga soo wareegtaye adigu meel allaala meesha ku muuqato deji oo dhig. faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam bakhin daka maalun raabix. bakhintaasoo ismu ficil weeyo oo madxiga loo isticmaalo iyo icjaabka iyo qofku markuu shay raalli ka noqdo. bakhin yani waa raalli baan ku ahay wey, macnaha waa guul camal wey. daka maalun raabix, kaasi waa xoolo guulaysta wey. u fiirso, waxaan dareemaynaa ayuha alikhwa, xoolaha midda aad yani ribxiga midda aad gacanta ku hayso oo ay gacanta jeebka kugu jira ma aha xaqiiqada. ribxiga xaqiiqada ah waa ribxiga aakhira wey. daka maalun raabix ayuu nabiga yidhi. daka maalun raabix waa ku celceshay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh. qad samictu maa qulta fiiha, rasuulka alla wuxuuna yidhi abu talxo waan maqlay wixii aad tiri. wa araa an tajcalaha fi alaqrabiin, se waxaan kuu soo jeedinayaa oo aan ii muuqda inaad dhex dhigto oo aad u qaybiso dadka qaraabadaada xigtadaada ah. faqasamaha abu talxata fi aqaaribihi wa bani cammihi, abu talxa wuxuu u qaybiyey xigtadiisii iyo qaraabadiisii iyo ilma adeeradii buu siiyey. maxaa yeelay waxay noqonaysaa sadaqatun wa sila, sadaqa iyo sila ayay noqonaysaa. yani waxyaabaha aan ka naxay waxaa ka mid ah sadaqada waxaa la rabaa inaadan raadin un dadka aqaaribta oo laga yaababa qaarkood in xuquuqda aad haysato, lacagta aad haysato ay waajibba ku tahay inaad ku infaaqiso. anoo masaajidka dhex jooga ayaa telefoonka masjidka waxay soo garaacday qof dumar ah Soomaaliya soo garaacday. waxay tiri gabadheedoo baahan oo miskiina oo ilmo yaroo iskuma qada haysata zakada ma siin karaa? kaas waxaan ku iri zakadu yani nabiga wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markii xasan iyo xuseen mid ka mida uu qaatay timir uu qaatay zakawaadka ka mid ahaa, kakh inaha min awsaakhi innaas, dadka awsaakhdooda dunuubta iskaga mayreen wey, ka leexo. gabadhaada maxaa wasakh u siinaysaa? waxa aad haysato maad ma qaybsataanoo xoolahaaga maad qayb ka siisid gabadhaada. zakawaadkana maad siisid dadka aqaaribta ah oo aad garanaysa. haddaa weydana dadka masaakiinta oo muslimiinta ah maad yeeshid dhexdooda. waxaa loo baahan yahay walaalayaal yani qofka inuu mataqaanaa shaxiixnimada ilaa halkaa inay gaarsiiso ma fiicna. bal waxaaba laga sheegaya dadka qaar hooyaday aabbahay zakada ma siin karaa, dadka qaar baa laga sheegaya inkastoo aan la kulmin. marka waxa weeyaan sadaqada waxaa fiican marka haddii aad wax bixinayso dadka aqaaribta ah iyo baniin acmaam inaad siiso. hadday fuqara yihiin mar walba lama siinayo, hadday fuqara yihiin weye, markaas waxay noqonaysaa sadaqatun wa sila ayay noqonaysaa. ibnu qayim raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay nabiga markuu ka warramayay sala allahu calayhi wasalam kitaabkiisa zaad ulmacaad fi hadyi khayr alcibaad, wa kana alcataa'u wassadaqatu axaba shayin ilayhi sala allahu calayhi wasalam, wa kana sururuhu wa faraxuhu bima yucطiihi acdama min sururi alaakhiri bima ya'khuduhu, wa kana ajwad annaasi bilkhayri يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثاره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلسانه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. انتهى كلامه رحمه الله. وعيري نبي وحوها عليه الصلاة والسلام وحسيس مديسة هي الصدقة ديسة وحي هيد أحب شيء إليه، shayga xaggiisa loogu jecel yahay ayuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. wa kaana sururuhu wa faraxuhu bima yucطiihi acdama min sururi alaakhiri bima ya'khuduh. sida dadka caadiga ah markii xoolo badan la siiyo u farxaan, nabiga bedel buu ahaayo markuu xoolo badan bixiyo sadaqa ku bixiyo ayuu sadaqadaasu ku farxi jiray.
wuxuuna u farxi jiray wax ka badan sida qofka yani kanzi helay oo lacag helay oo sadaqa yani xoolo badan la siiyey asagoo muxtaaja u baahan si u farxo nabiga markuu wax bixiyo sidaa si ka badan oo ka weyn ayuu u farxi jiray sala allahu calayhi wasalam وكان أجود الناس بالخير نبي وحوها مد ديق بدنو midka dadka ugu deeqsisan buu ahaa khayrka marka la fiiriyo gacantiisu nabigu waxay la mid ahayd dabeesha xoog badan oo xoog yani xawaaraha badan ku socota ayay gacantiisa la mid ahayd hadduu nabiga u banbaxo u yimaado qof muxtaaja oo baahan atharahu calaa nafsi naftiisa ayuu wuxuu haysta ka qaadi jiray oo ka doori jiray qofkaa miskiinku siin jiray sida ansaarba allah subxaana wa tacaala uu ku ammaanay wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa تارة بطعامه حوليس راشين كيس برسين جري وتارة وحكود يجري بلسان يعرف كيس وحولي جري والمرتبة عن باقي تمد عفد إذا وحمية الآن وريا وحية وحسينية أو مرتدى إذا ما أنت متقانا مرتدى سورية ساسو النبي يجري نبي وحوها عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة ويحث عليها ضدك أيها النبي صدقة أمر جري وكبور جري ويدعو إليها وأوير جلدتك إن ذلك المساكين تأوى على قور قبا والصدقاء للصيو بحاله وقوله نبي حالة دي ساوى حياة هيدبا إنه أصينا بحيه تتكن أويره قولا وفعلا أيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه سأيو كتل المامي نقيم رحمه الله تعالى تدوك لو حاسم النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كسأ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي إنه يري بل النبي الدنيا سوق فقا أفرس ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي نبي وحير إما فرح قلنيسو إنه أنا يسقناضه أحد جبلك أحد وذهبه جبلك أحد وقرنيس أنتو لقيه وذهبه تأتي علي ثالثة أو صدح حبين أكتد ويا لمركا وعندي منه دينار أي هذا صدح هدي لي كانوا كاس جبل كأحد الذهب هدي لي كانوا كم فرحي ما يصدح حبين إنه أكتد ياله دينار كميدا إلا دينار موي دينار كاسو أنو دياري دين دشيد أهاتي نبي عليه الصلاة والسلام وقرنيسان سد الدنيا uga fogaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi hadda waa kana xadiidkii bayruuxa markaan soo maraynay waan maqlay wixii aad tiri wa araa an tajcalaha fi alaqrabiin wa tuyir nabiga calayhi kama qaadin xoolihiisi asaga ayuu wakiil uga dhigay wuxuu yiri qaybi adiga dadka ahlu khayrka waxa la rabaa adduunyada saa inay uga durkaan wa khaasatan awsaakhu nnaas dadka xoolahooda iyo sadaqaadka ay la baxayaan waa mas'uuliyad weyn qofka inuu ka carara loo baahan yahay uusan naftiisa kuwa sakhayn dadku waxay isku tahireen marka nabiga la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam ayu sadaqati acdam sadaqateeda u weyn u fadli badan u ajar badan nabigu wuxuu yidhi anta sadaqa wa anta shaxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'mulu alghinaa waxaa u fadli badan sadaqa waxaa u fadli badan inaad sadaqaysato adiga oo saxiixa oo caafimaad qaba oo dhag aan laga hayn maxaa meesha ku baxaya markii geerida ay kuu soo degto inaad qayliso lama rabo sida xadiidkaba uu keeni doonaba shaxiixun haddana bakhayl ahoo naftiisa xoolaha ay jeceshahay oo ay isku dhajinayso aad ka fujiso takhsha alfaqra weliba adigoo faqri ka cabsanaya wa ta'mulu alghinaa qanaadnimo iyo deeqsinimona يعني هيكسنية haddaad wallahi intaa isku dubaridato dadka waxaad ku beeraysaa dadka waxaa ku beeraysaa mataqaanaaye wax haysta ayaad ku beeraysaa naftaada ay kugu sheekayso nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walaa tuhmil dib ha u dhigin oo ha ihmaalinin sadaqada bixinteeda xataa idaa balagat alxulquuma ilaa ay nafta gaarto xawlmariidka nafta markay gaarto oo marka aad tiraahdo qulta lifulaanin kada ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان بنبي عليه الصلاة والسلام أو مركز سأد بلو حولها إنا قيبسه هبل أنت سوليه هبل أنت سوليه هبل أنت هلا صير نبي وحير ألا هوي برارو
وقد كان لفلان هبل وحولا أقول نبي هبل باب اسكلها إلهي باب قيبي سبحانه وتعالى هذه لا تشن معي محايا لي الله سبحانه وتعالى سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة سدح ذا أيضا بالغ قيبي حولها قيبا وابل قيبي ربي بقى قيبي تبارك وتعالى نبينا وصيفه فيه صلوات الله وسلامه عليه مركا حديثك waxaan ka faa'iideysanaynaa marka qofka inuu intuu caafimaadka qabo uu kaydkiisa aakhira asaga ma arkaysa ay wax dhigto oo gashto ayaa loo baahan yahay walaalayaal fadaa'il bay leedahay sadaqadu fara badan oo aan la soo koobi karin fadaa'isheeda waxaa ka mid ah hadduu qofka xoolihiisa xalaasha ah bixiyo xalaasha ku soo galay uu bixiyo kasab xalaala uu ku shaqaysay uu bixiyo markuu bixinayana ilaahay dartii subxaana wa tacaala uu ula baxo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka aqbalayaa fadligiisu ku aqbalayaa waana u laablaabaya rabbi subxaana wa tacaala thawaabka ka laazimaya adcaaf mudaacafa ilaa 700 dacf waxaa saxiixayn ku soo arooray min xadiisi abi hurayra nabiga inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tasadaqa bicadli tamratin timir in la eg qofkii sadaqaysta min kasbin طayibin xoolo xalaalna ka sadaqaystaayo walaa yaqbalu allahu ila طayib jumla muctarida wey ilaahna maba aqbalaba xoolo aan طayib ahayn oo xalaal ahayn mooye wax kale maba aqbalee wa ina allaha yataqabbaluha biyamiinihi alla subxaanahu wa tacaala midigtiisuu ku aqbalaya uma yurabbiiha lisaaxibihi sadaqadaasi qofkii bixiyey buu rabbi u barbaarinaya u korinaya kamaa yurabbii axadukum midkiin sida uu u koriyo faluwahu يعني درمانتيس أكري يعني فرس كيسير فلوغ حالي هذا درمان تير يعني مركا فرس كير حتى تكون مثل الجبل إلى بر الأكات وحيرب بحي إلهي سبحانه وتعالى وأولى بلابيا وأبربارنيا وأكرنيا أجر بدن بكسينيا إلى جبل وين إلى أكات موجودة مركز قيامها هيليا مركز قف قيامها كفر حياة ولا لي الفضائش إذا حكم ذا صدقة فضائش إذا حكم ذا تكفير السيئات قفك حمانتي سإنه غلافه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وحكورنا من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نبي إنه يري صلى الله عليه وسلم معاذ كيري ألا أدلك على أبواب الخير معاذ وميان كتسين أبواب خير كأه يعني من كتسوي معنا مركز معاذ وحكيري تسر رسولك الله مركز النبي أتري عليه الصلاة والسلام أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صومك وجنة قاشان عذابك الله يغضب كيس قاشان كيهي والصدقة صدقة تطفئ الخطيئة قفك أي دمساه خطيئة أي دمساه كما يطفئ الماء النار سيدا الدبكة بيها أودميه sida biyaha dabka uu damiyo oo dab ololaya hadii biyo lagu shubo dabkaas waa u seexanaya uu baqtinaya taasoo kale ayaa khati'aadkaaga iyo dunuubtaada dab biyo lagu shubo kale noqonayaan marka sadaqa la baxdo fadaa'isheeda ka mid tahay fadaa'isheeda waxaa ka mid ah sadaqada walaalayaal xoolahaaga inuu Allah subxaanahu wa ta'ala ku ziyaadiyo namaa'ul maal wa ziyadatuhu xadiidka imaam muslim uu soo wariyay saxiixiisa ku soo wariyay min xadiis abi hurayra nabigu wuxuu yiri ما نقصت صدقة من مال صدقته يعني حوله يعني من نسقى مسوي كحكم انتو waxay ka dhamaysamaan oo qofka haduu isweydiiyo su'aalaha laba kun man hayse kun baan bixiyay kun baa ii soo hartay oo si xisan oo dareen caadi aan dareemayo xoolahay waa isdhimaynaysa xaalku yahay nabigana wuxuu leeyahay ma naqasat sadaqatun min maal ayuu leeyahay maxaa ku soo yahay waxa weeye baraka Allah subhanahu wa ta'ala ku galinaya xoolihii inta Allah hartay haba yaraadeen oo xoolahaagii xisi ahaan ha isku dhimeen laakiin macna ahaan ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala 2,000 iyo 5,000 dollar waxay kuu goon lahayd ayaa kunkaasi rabbi subxaanahu wa tacaala kuugu barakaynaya tabaaraka wa tacaala sidoo kale waxaa yani natusaya sadaqada ajarkeeda waxaa natusaya in xoolaha ay ziyaadiso oo qofka faqriga ay ka ilaaliso waxaa natusaya nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin kasta waxaa soo degaya 2 malag midkood wuxuu leeyahay اللهم أعط ممسكا تلفا إلهي وقفك حوله سهيستا أو وحبك يعني وحبا عن كبحنين
oo dhabcaalka ahoo shilinka uusan ka soo dhicin ilaahay oo kaasi yani waxaad siisaa telefon tirtiran sii xoolihiisa ilaahu tirtiro baabi'i oo aafa ka geli وقال الآخر كان كلنا وحوليه اللهم أعطي منفقا خلفا إلهيو متك يعني ما أركي ساي متك حولها بحنية أو منفقة أو نفتي سمر والبابا أي شيء إنه حولها بحيه إلهي بدل خيرك بسي عوض إله سي مركز الصباح والبا قفك بخيلك أهنا ملك بها بارية قفك الديغ سي أهنا ملك بأدعيني مركز عديق واحد دورتا إناد صباح والبا ملك وكود دعيه inuu malag ku duceeyo ama malag inuu ku habaaro labada kala dooro masaakiinta laga warqabo walaalayaal nusuustaasna sidaas aynu u rumayno maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a fadaa'isha sadaqada waxaa ka mid a walaalayaal istidlaalu lmu'mini fii dilli sadaqatihi yowma alqiyaama qofka mu'minka ah inuu qiyaamaha harka sadaqadiisii harkeeda u harsanayo يوم لا ظل إلا ظله هر ما نسجلين هرك الله وسمعي مويه وقرأنا سنة حديث مسلم بخاري مسلم كسر من حديث أبي هريرة النبي وحيد 7 يظلهم الله في ظله تضبع الله سبحانه وتعالى وهرينا يا هرك سو هرينا يا مالك وسن هرجرين إلا هرك الله مويه هر الله وسمعي مويه وحاكم إذا مركه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني نين ayaa ka mid ah sadaqada la baxay oo qariyay ilaa aysan midigtiisa ogaanin waxa ay bixinayso ilaa bidixdiisa aysan ogaanin waxa ay bixinayso midigtiisa u fiirso sadaqada qarinteedii buu ku xeel dheeraaday oo xitaa asagii jirkiisii qayb ka mid uu ka qarinaya macnaha waa mubaalaqa inuu sadaqada qofka qariyo waa mararka qaarkood ay sadaqadu fadli badan tahay in la qariyo saan soo sheegnay mararka qaarkoodna way fadli badan tahay in la muujiyo waa markii yani qudwo iyo kudayasho aad noqoto weeyaan si ajir badan aad u hesho waxaa ka mid a walaalayaal sadaqada fadaa'isheeda waxaa ka mid a sida ibnu qayim raximahullahu tacaala uu leeyahay sadaqadu qofka waxay ka ilaalisaa waxyaabo badan oo shara masaa'ib badanna way ka ilaalisaa wuxuu yidhi wahada shayun macluumun cinda annaasi khaasatihim wacaamatihim wa ahli alardi kulluhum muqiruuna bihi arrintaasi khaasada iyo caamada way yaqaanaan culimmada iyo caamada way yaqaanaan يعني أهل الأرض يقولون بقى يقانوا ليه لأنهم جربوها ويتجابيين وحي تجربيين وي حتى لو كانت هذه الصدقة من ظالم أو كافر فإن الله يدفع عنه به كثيرا من الشرور والمصائب حتى قفك صدقة الله بحية دو الظالم يهي أما أقال يهي إلهي سبحانه وتعالى مصائب فربضا شرور بضن بوكا اللحية بل الدنيا الوصية كان قالك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مكليلي أكوريسي إن يعني ما أركيسي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وأهر مرننا وح الله لوحي أي الدنيا ذو كبحيان الدنيا لو صينية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قيامها مرك الله تغنى فجعلناه هباء منثورا وحي الدنيا ذك آخرك هليان ماذا صدق الله لو حكم ذا فضائش هذا وحكم ذا qofka muslimka ah hadduu la yimaado abwaabta khayrka weliba kuwa sadaqada loo yaqaano sadaqatul jaariya oo ah yani xafru laabaar ceelasha in la qodo masaajidada in la dhiso kutubta cilmiga in la daabaco meelaha qur-aanka allah subxaana wa tacaala lagu barto annaga aan u naqaano dugsiyada in ma arkaysaa la taageero oo la dhiso awqaafta iyo waxyaabaha masaakiinta meelaha wax lagu barayo sida fuqarada iyo masaakiinta iyo agoonta iyo meelaha wax lagu barayo qofka inuu ka qayb qaato oo wax uu gashto waxay u noqonaysaa sadaqa jaariya nabigeenna waa garanaysan xadiidka saxiix muslim ku soo arooray min xadiisi abi hurayra nabigu inuu yidhi idaa maata alinsaanu insaanka hadduu dhinto inqataca camaluhu camalkiisi waa go'aya xarig taagnaa oo kale oo dhexda manqas looga dhuftoo kale maalintii lagu aasayo camalkaaga waa go'ay حساب باكو باللابطيه وح عملوا إلهي سبحانه وتعالى دواوينتي خير كأها والله اسكول لابيا انقطع عمله إلا من 3 6 أيام مقو أيام وسعنا
إلا من صدقة جارية صدقة جارية دو كتجي أما يوسم بكتجيني أولادي سي صدقة جارية أسمايين أو أمس علم ينتفع به علم اللي انتفاعيه لأن علمي هذا أنا أخرنا إنه جيل عن جيل أيا نوسو ديبي قف بقف بوسو ديبي دينك هذا أنا برنا إنه قف بقف بوسو ديبي كورن يعني النبي محمد أجرك وكله كورن انتو ليه علماء أجرك كله صحابة كورن يعني أجر أن لكوبي كرموي جيل بجيل بوسو ديبي أو علم ينتفع به أو أمس ولد صالح يدعو له ولد صالحة وأولاد هذا كمد صوبا وإلهي سبحانه وتعالى كوصو بريه سجود يا أوقات خيرك ربي سبحانه وتعالى كوصو بريه يعني أرنتاسي المهج حتى حال ربع أنا واسخير يسمى أرنتاسي ده المهج كتر بيه أب هوي مركان دنتو أنا أبي هوي دي ودعية يسو دعيه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي سجود كله المها ألقن معناها ما أركيسا dadka khayrka haddaad saa samayso yani ma arkaysaa waxay noqonaysaa wax ay ilmahaagu markaad dhimato xitaa xusuustaan maama yani qof muslimiinta ka mid ah wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi hooyaday oo waayeela oo aan arkay in waxoogaa xaaladdeeda aysan fiicnayn oo ay tegayso markaasaan waxaan idhi hooy ii dardaaran haddaan kaa hormaro hooy iisoo ducey baa idhi anoo markaasi fu'aadkeeda ay qalbigeeda ku adkaynaya in aan yani tusayo inaan tusin inay iyada dhimanayso laakiin anaa iska bilaabay buu yidhi ninkaasuu daki u ahaa fiiri anaa iska bilaabo waxaan idhi buu yidhi aabbo hooyo haddaan dhinto hooyo icafi wixii xuquuqa hooyo birigaagii iyo samafalkaaga inaan kasoo bixi waayaa suuragale hooyo iska ka icafi iina soo ducey hooyo hooyo se haddaa adiga iga hormarto maxaa ii dardaarmaysaa baan ku yidhi markaase waxay tiri buu yidhi hooyo qabriga ha igu iloobin oo se hooyo qabriga aan kugu iloobin hooyo ilaahay iisoo ducey hooyo wuxuu igu yidhi ninkaasi mar walbo aan sujuudo ama mar walbo aan ma arkaysaa awqaatul ijaaba aan yaqiinsado inaan ku guda jiro xaalaadka ilan ducada waa soo marnay iyo axkaamteeda iyo waxyaabihii waqtiyada awqaatul ijaabade waan baryaa buu yidhi waxaana igu soo dhaca buu yidhi dardaarankii mar walba igu soo dhaca buu yidhi kaannaha ina hadda ileeda marka ilmahaagu waxa weeyaan abwaabta khayrka waa la baraa annagu laakiin canaan iyo dagaal iyo intaas wax lagu tura iyo cay iyo aflagaado iyo tacniif iyo awshaba halkaasay nooga dhammaanaysaa lama rabo ilmaha waxaa la rabaa si yani ma arkaysaa qoto dheer qofka inuu ilmihiisa ula xiriiro ayaa loo baahan yahay walaalayaal qofka xoolihiisa bixinaya umuraha soo socda waa inuu ilaaliyo awalan alikhlaas ilaahay dartii subxaana watacaala sadaqada waa inuu bixiyaa maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala ma aqbalayo acmaasha waxaan khaalis ahayn midda labaad inuu iska ilaaliyo hadduu xoolo bixinayo inuu soo qabto midda xoolaha u liidata waxa liita inaad bixiso mar walba taasan sifo fiican ma aha يعني وحا الله سبحانه وتعالى سورة البقرة طولها ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني حولها الضح ما آذن قادن لهين حولهم وحن ما آذن قادن لهين إن أدن الله كو قادة دانيكو بدأ إنا كو قادة مويه ما آذن قادن لهين هذا آذن قادن لهين حولها أسي أذيقنا هدبا بحبحنين حولها كيس الرديقة بحين وحاول لي القفك إنه يعني إسكا إلى لي اللو بهايا منق يا أداه إنه راعيه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى حق أنت سكولوجي هاي ما شقيست مكان بريس طبعا معناها حلقة بقى كن دور إنه قدرته هذا كان وكاتة كور هذا مني إيوه حوي أدوي اللي بقفك وادبتي وانا وعدي قفكي قلبي جيسي مشاعرتي تبع وعدي حولها جنوا متقانا أجر كاجنوا اسكباب يسي وحال ربا قفك إنوسن بخيل وحق بحنيو aqaaradiisa shayga waa yar yahay wuxuu qofku u tarayaa haddaan wax badan u taraynin anigu wax aan bixinaya male taasi wax fiican maaha iyadoo waxa way wixii ilaahay subxaana watacaala kugu og yahay $20 waxaa laga yaabaa qofka inay ka farxiso maxaa yeele maba uusan haysan ba $20 waxa way taana qofka inuu ka digtoonada loo baahan yahay inuu qofka mar walbaba waxaa loo baahan yahay sadaqada fawaa'ideeda waxaa ka mid ah
qofka mar walbaba waxa naftiisana u sheekayso inuu yani ajarka sadaqada uu bixinayo inuu cinda allahi tabaaraka wa tacaala qalbigiisa uu ku tolnaado ma cinda allahi tabaaraka wa tacaala وأتدو مغليسي متغنى أبو طلحة طلها وإني أرجو برها وذخرها عند الله سأرك مس قلبي قال كتلنا أو هكا كحرنا إلهي سبحانه وتعالى ما عند الله تبارك وتعالى قف كان وحنا ترى يسمرنها إيجن أو قف كان وحنا ترى إن الأبال كهشايو أو أبال وكوسو جيد هكفلين هذوك هو أبال وحكام قليل محايا لي هدفك أسوي معها إنك بحديث إنك بحنيسي هدفك أسوي مصنعين هدفك وحوها ما عند الله تبارك وتعالى إلى وحن كبرينا سبحانه وتعالى صدقات كين إصوم كين إنه الله أقبله كلمة ذا سوحي أن قفنينا إنه إلهي سبحانه وتعالى نضافه وحي أن أصيبنا كل جن إنه أجر نقصيه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.